Waxaa jiray oo dunida soo maray nin la xasuusan doono magaciisa qarniyo badan. Nin aan hub wadan balse maskaxdiisu ahayd hub ka awood badan xabad kasta. Waxa uu ahaa nin si aamusan u shaqaynayay balse dunidu oo dhan ay indhaha ku haysay. Waxa uu ahaa nin sirdoonada ugu awoodda badan adduunku ay ugu yeedheen ninka ugu halista badan ee qarsoon. Waa ninka Israa'iil gelisay liiska koowaad ee dadka ay dilayso. Magaciisu waa Dr. Muxsin Fakhrizadeh. Saynisyahankii ugu halista badnaa ee soo mara dalka Iiraan. Waa ninkii loo bixiyay aabbaha barnaamijka nukliyeerka Iiraan. Noloshiisu waxay ahayd mid lagu dhisay sir, ilaalin iyo cabsi. Markasta oo uu baxayo, kolonyo ilaalo ah ayaa daba socon jirtay. Waayo sirtiisa waxaa loo arkayay mid awood u leh inay beddesho miisaanka awoodda caalamka. Fakhrizadeh ma ahayn siyaasi, mana ahayn taliye dagaal, balse waxa uu ahaa maskaxda ugu weyn ee Iiraan u horseedi lahayd awood nukliyeer inay noqoto. Sirdoonka reer galbeedka ee Israa'iil waxay sanado badan ku bixiyeen malaayiin badan ku bixiyeen baadhikoobka iyo raadintiisa, iyagoo aaminsan in haddii la tirtiro oo la soo afjaro ninkan ay burburi karaan riyo kasta oo ay Iiraan ka leedahay hubka nukliyeerka. Muddo 20 sano ah, Fakhrizadeh waxa uu u noolaa sida nin laba wajiile ah. Hal dhinac waxa uu ahaa professor jaamacadeed baraya ardayda physics. Dhinaca kalena waxa uu ahaa hogaamiyaha mashruuca ugu sirta badan ee Iiraan. Xitaa sawirkiisa ma jirin cid heli karta oo si fudud looma heli karin. Muuqaalkiisu waxa uu ahaa sir la ilaaliyo. Hay'adaha sirdoonka reer galbeedku waxa ay sheegeen in mar kasta oo ay isku dayaan inay ogaadaan halka uu joogo oo sida hadhka uga libdhi jiray. Maanta waxaynu mawduuceena ka soo qaadan doonaa taariikh nololeedka saynisyahanka aynu ka soo sheekeynay. Magaciisu buuxii waa Dr. Muxsin Fakhrizadeh Mahabbadi. Waxa uu dhashay sanadii 1958 magaalada Qazviin ee waqooyi galbeed dalka Iiraan. Waxa uu ku barbaaray deegaankaas oo ku caana diinta iyo aqoonta. Qoyskoodu waxay ahaayeen dad caadi ah oo diin iyo wadaniyad ku dhisan. Tan iyo yaraantiisii waxaa laga dareemayay jacaylka uu qabay cilmiga, qaranimada iyo qarsoodida, isagoo aad u xiisayn jiray fiisigiska teknoolojiyadda. Kadib markii uu dhammeeyay dugsiga sare, Fakhrizadeh waxa uu galay jaamacadda Imam Hussein University ee Tehran, halkaas oo uu ku bartay fiisigiska. Waxbarashadiisu kuma ekaan kaliya heer jaamacadeed ee waxa uu gaadhay darajada ugu sarreysa PhD, isagoo si gaar ah diiradda u saaray nuclear physics, fiisigiska nukliyeerka. Inta uu waxbaranayay waxa uu isku darsaday laba shay oo noloshiisa dambe bedelay. Number 1, aqoonta sayniska casriga. Number 2, difaaca iyo qarsoodida militariga ee Iiraan. Labadaas isku dhafood waxa ay dhaleen nin ay adag tahay in la fahmo, cilmiye hubaysan oo qarsoodi ah. Fakhrizadeh waxa uu bilaabay shaqo cilmiyeed sanadihii 1980 xilligaa Iiraan ka soo kabanaysay dagaalkii Iiraan-Ciraaq. Markaas ayaa dowladda Iiraan bilowday qorshe qarsoon oo lagu dhisayo barnaamij difaac nukliyeer ah. Mashruucaasi waxa uu ahaa mid sirdoon iyo saynis isugu jira, waxaana madaxiisa laga dhigay oo madax looga dhigay Muxsin Fakhrizadeh. Waxa uu noqday madaxii mashruuca Ahmed Balaan, kaas oo lagu tijaabinayay habka lagu sameeyo walxaha nukliyeerka, farsamada bamka nukliyeerka, qalabka cilmi baadhista iyo difaaca injineeriyadda tamarta sare. Sirdoonka reer galbeedka ee Israa'iil waxay ku eedeeyeen in mashruucaas uu ujeedkiisu yahay samaynta hub nukliyeer ah, inkastoo Iiraan ku dooday inuu ahaa barnaamij cilmiyeed iyo tamar ah. Waxaa lagu sheegay inuu awood u lahaa inuu mideeyo boqolaal saynisyahano, inuu qarsoodi u maamulo miisaaniyad ballaaran, iyo inuu xiriir toos ah la lahaa ururka loo soo gaabiyo IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps. Marka laga yimaado shaqadiisa sirta ah, Fakhrizadeh waxa uu ahaa professor jaamacadeed oo ka dhigi jiray jaamacad fiisigiska iyo injineeriyadda difaaca. Ardaydiisii waxay sheegeen inuu ahaa nin xasiloon, aamusnaan badan, balse si qoto dheer u fahmay sayniska. Waxa uu qoray daraasado badan, hase yeeshee inta badan lama daabicin sababo amni dartood. Xiriirka uu la lahaa sirdoonka iyo qarsoodiga difaaca. Muddo dheer, sirdoonka Israa'iil ee Mossad iyo CIA waxay ku raad joogeen ninkan. Markii sanadkii 2018 uu ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu isagoo shir jaraa'id ku jira soo bandhigay
faylal la sheegay in laga xaday Tehraan. Waxa uu si cad ugu yiri saxaafadda magaca xasuusta Muxsin Fakhrizadeh waa maskaxda barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan. Weeraro hore oo lagu dilay saynisyahano Iiraaniyiin ah intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2015 waxaa la rumaysan yahay inay ahaayeen isku dayo lagu doondoonayay in lagu gaaro isaga, balse uu si la yaab leh uga badbaaday dhowr jeer. Ugu dambeyn waxaynu ku soo gunaanadaynaa mawduuceena dilkii Fakhrizadeh. Subax qabow oo Jimco ah oo bishu ahayd 27 Noofembar 2020 Muxsin Fakhrizadeh iyo xaaskiisa waxay ku sii jeedeen magaalada Absard oo ku taala duleedka Tehraan. Kolonyo amni ayaa la socotay, balse si lama filaan ah ayaa wadada looga weeraray. Weerarkaasi waxa uu ahaa mid aan hore loo arag. Qoriga la isticmaalay wuxuu ahaa mijiinkan si fog looga hagayay, mijiin robot lagu hagayay oo meel fog laga hagayay. Waxaa lagu xiray gaariga Toyota oo meel la dhigay. Qoriga waxaa maamulayay sirdoonka Mossad iyadoo la adeegsaday AI iyo satellite control. Lama arag askar amba weeraryahanno toos ah. Fakhrizadeh waxaa lagu dhuftay dhowr xabadood oo halis ah, wuxuuna ku geeriyooday isbitaalka isagoo dhaawac culus qaba. Weerarkaasi waxa uu ahaa mid noloshiisa soo afjaray, balse magaciisa iyo saameyntiisu ay sii noolaayeen. Aaskii iyo falcelintii caalamka. Maalmihii xigay Iiraan waxay u samaysay aaskiisa xaflad heer qaran ah. Madaxweynaha, taliyayaasha ciidamada iyo kumanaan qof ayaa ka soo qayb galay aas lagu maamusay Fakhrizadeh. waxaa lagu magacaabay oo ay ku magacaabeen Iiraaniyiintu shahiidka cilmiga nukliyeerka. Hogaamiyaha sare ee ruuxiga Iiraan Ayatollah Khamenei waxa uu ku dhawaaqay in la sii wadi doono jidkii uu Fakhrizadeh hayay, isagoo yiri cid dilaysa Fakhrizadeh ma damin karto iftiinkiisa. Wuxuu noolaan doonaa isagoo dhintay, cilmigiisa ka hadhi doona iyo dhiirigelintiisa. Ugu dambeyntii, nolosha Muxsin Fakhrizadeh waxay ahayd sheeko ka dhaxaysa cilmi, sirdoon iyo geesinimo qarsoodi ah. Waxa uu ahaa in cilmigiisu bedelay jihada siyaasadeed ee Bariga Dhexe iyo dalkiisa Iiraan. Noloshiisana wuxuu u bixiyay riyada rumaynta riyada qarankiisa. Waxa uu dhintay isagoo difaacaya sir uu arkayay guusha qarankiisa, balse dunidu weli waxay falanqaynaysaa ma ninkaas baa run ahaantii lahaa furaha hubka nukliyeerka ee Iiraan, mise waxa uu ahaa keliya astaanta halgan qarsoon iyo aqooneed oo nukliyeer ah. intaan mawduuca mid lamida ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabaday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.